kusoo dhawaada walaalayaal fiidiyogan iyo mar kale casharkan waxaan ku qaadan doonaa qaabka ugu fiican ee fiidiyogaaga aad ugu share gareynaysid facebooka. Haddaba facebooka maxaynu ugu share gareynaa fiidiyoyadeena? su-aashaas waa inaad mar walba aynu isweydiinaa. waxa aynu ugu share gareynaa facebook videoskeena si fiidiyogeeni dadka u arkaan oo aynu population uga keensano xagga facebooka dad inoo daawada fiidiyoyadeeni. haddaba si dadku u arkaan fiidiyoyadeeni halkaynu dhigaynaa? ma meel dad badan ku jiraan baynu dhigaynaa fiidiyogeeni mise meel aan cidiba ku jirin oo bilaa population ah? marka halkaad dhigaysa mar walba waa inaad la socotaa fiidiyogaada. haddaba halkaad dhigaysa fiidiyogaaga waa inay noqotaa meel dad ku jiraan ama traffic wax loo yaqaano leh. marka walba markaad meeshaada dhigaysid, markaad meesha facebooka dhigaysid, waa inaad eegtaa inta qof ee ku jirta bogga aad dhigaysid ama pageka dhigaysid ama meesha dhigaysid. haddaba matalan haddaynu iminka linkiga groupka aynu eegno, groupkaas baynu eegaynaa tusaale ahaan oo aynu dhigaynaa fiidiyogeena. markaynu saa groupka u boqono toos baynu arkaynaa, markaaba groupka dhexdiisii baynu gelaynaa. kadib halkan hareertan waxaynu ku arkaynaa populationka ku jira groupkan waan idiin soo dhigayaa linkigiisa meesha, waynu ka faa'iidaysan doontaan. groupkan waxaa ku jira dad aad u tiro badan marka loo eego facebooka. waxaa ku jira 1,750,000 oo qof ayaa ku jira. marka 1,750,000 ee qof waa traffic aad u badan baad halkan ka helaysaa. haddaba si traffiga aad uga faa'iidaysato waxaad u baahan tahay inaad fiidiyoyada kusoo share garayso. haddaba fiidiyogiisaynu usoo share garaynaa. fiidiyogeena istabkii koowaad weyn, istabkii casharadii hore waynu kusoo dhiganay inaynu ballaadhinayno. haddaba ma ballaadhinay fiidiyogeeni, magacaasaad mar walba haysanaysaa si ay si dhib yar kugu noqoto. laba habna waad ugu share garayn kartaa, waan idin tusi doonaa. hab aad halkan linkigiis ka dhiganayso iyo hab kale oo aad linkiga fiidiyogaaga aad halkan iska dhigayso iyo hab kale oo aad kaga soo dhex share garaynayso pagekaagi. haddaba habkan linkiga aad dhex dhigaysa halkan haddaynu ku horeyno fiidiyoga linkigeeni baynu doonaynaa. waa kan fiidiyo linkigeeni halkan inoo yaalay. kadib pagekii baynu groupkii baynu tegaynaa. groupkii markaynu tagno halkaasaynu ku control iyo v baynu taabanaa. control iyo v markaynu taabano halkaasuu linkigii inoo soo dhigayaa. kadib halkanuu linkigii fiidiyogeeni inooga ballaarhanayaa. iminka fiidiyogeeni halkaasuu fiidiyogeeni inoo yaala. iminka marka linkiga waad iska masaxaysaa. haddaad rabtid description baad ku qoraysaa, waxbaad ku qeexaysaa fiidiyogaaga si dadku u arkaan oo u akhristaan. kadibna posti baad leedahay. kadib markaad posti tiraaho, si aan filayay groupkan toos buu u dhigmaayo isku soo aalaa, laakiin pending buu galay. your post has been submitted and is pending to approve. marka video linkigeeni pending buu ku jiraa iminka. marka adminka groupkan baa inaga soo aqbalaya. markuu inaga soo aqbalo groupkeena, markuu fiidiyogeena inaga soo aqbalo postigaynu dhigayno approve waynu oranayaa. markuu ina aqbalo kadib halkan aynu ku arkaynaa postigeeni ama fiidiyogeeni aynu soo dhignay pageka. kadib halkan aynu ku arkaynaa. intaa kadib fiidiyogeeni dadku way arkayaan. haddaba waxaynu ku xigsiinaa processka kale ee aad uga soo dhex dhigi karto facebook pagekaaga dhexdiisa. haddaba facebook pagekaaga dhexdiisa adoo ku jira waa inaad groupada wax ku share garayn kartaa. haddaba si aynu groupada wax ugu share garayno facebook pagekeeni inoogu dhufo, waxaan tusaya habkaad uga share garaynayso. haddaba habkaad uga share garaynaysa hadda ila soco. haddaba halkaasuu inoo soo saaraya pageka. markaynu taaganahay aynu tagno facebook pagekeeni oo halkan inoo soo saaro. imka halkaa aan idiin sheegayo waa halkan idin lahaa dadkaad ka arkaysaa, arka postigaaga dadka arkaad halkaa ka eeganaysaa. marka halkaa iminka qof baa arkay. marka qofkaasi waxaa dhici karta inuu inaga yahay, qof kale muu arag oo pagekii cidiba kuma jirin. haddaba si aad u share garayso waxaa loo baahan yahay, haddaba si aynu u share garayno waxaynu u baahannahay inaynu halkaa taabano. kadibna waxaad leedahay share in a group baad leedahay. kadib marka share in a group tiraaho waa inaad halkan taabsataa groupbadii. halkaa ma select garaynay, halkan baad ku qoraysaa groupka magaciisa. love baad iska oranaysaa. intaasoo group inoo soo dhigaya. haddaba love tibiskaas aynu ku dhufanaa oo kale dad badan baa ku jira. marka hadda groupka waynu ku share garaynay fiidiyogeeni.
haddana mid kale aynu ku share gareynaa marka waa inaad tirsataa unlimit waxa ay ka dhiginde si aan lagaaga xidhin marka haddana group kale magaciisa ku qorayna qoto kale ku qor Soomaalidu qoto taqaanaaye kadibna qotada ugu sareysa taabo kadib haddaad qoraal ku qoraysid ku qoran kartaa haddaad kadibna post baad leedahay kadib halkaas inoo soo dhigayaa successfully post ama share your video successfully shared qolka qoto inoo soo dhigay kadibna videogeeni wuu yaalaa hadda laga bilaabo qolka qoto kadib haddana haddaad rabtid mid kale haddana saasaad oran kartaa haddana share baad oranaysaa haddana groupka dooranaysaa aad rabtid magaciisa love baad iska oranaysaa loofyo badan baa meesha ku jira marka kaaba iska dooro groupadan waan idin soo wada dhigi doonaa meesha si aad u join garaysaan oo uga faa'iideysataan dadka ku jira marka wuxuu yiri timeline posts are off bukuri marka groupkan aynu dooranay laguma soo post gareyn karo waxba oo nin kale wuxuu yiri keligii un baa ku post gareyn kara anaa keligii talinayo marka keligii un baa dhigta wax marka dadku ma dhigtaan oo ma ogola marka mid kale aynu iska dooranaa marka waxaad iska dooranaysaa qolka ku hadalka af Soomaaliga ba iska dooro waka dad badan baa qolka laftiisa ku jira kadib haddaad postiga wax ku qoranayso dhag halkaas ku qoranaysaa kadib share baad leedahay ama post kadib wuxuu ku waa successfully haddii aanu ku soo dhigina wuxuu ku oranayaa pending buu ku leeyahay qofka group kale ayaad pending ugu jirtaa kadibna qofkaas markuu soo aqbalo ayaa lagu sii deynaya haddaba saacada laga bilaabay imika waynu share gareynay waanaynu group videogeeni dadkuna way arkayaan oo qofkii ku dhufta postigan wuxuu toos ugu geynayaa YouTube channelkeeni marka dad badan baynu halka ka keensanna markay dadkii inoo daawadaan habkaasina waa habka Facebooka loogu share gareynayo postiyadaada ee ugu fiican profile-kaaga waad ku share gareyn kartaa haddaan idinku daro profile-kaaga halkana taabanaysaa share pages dad page kala leedahay taasaa taabanaysaa oo sidii groupku baad u maraysaa habkii kadib share baad oranaysaa dad profile ka dhigayso kadib halkan dhigaynaa buu yiri waxaad oranaysaa waxaad leedahay posting halka dhigaysaa profile-kaad ka dhiganaysaa share timeline-kaaga dhigaysaa marka Facebook-kaaga caadiga ah ka isticmaalayno in ka dhigaya ugu share gareynaya marka successfully share buu qornaa marka habka kalena waa habka loogu share gareynayo timeline-kaaga caadiga ah ee Facebook-kaaga Facebook profile-kaaga kadib videogeeni dadkii markiiba u gaaraya kadib hal dhow markaynu waxoogaa ku soo noqono waxaad arkaysaa halkan oo isbedelaysa oo inta qof uu gaaray baad markaaba arkaysaa marka intii qof uu gaaray dadkii kaliig ma wada siinayaan ma wada daawanayaan waxaagii dad badan baan u baahnayn oo soo jiidanayn marka dadka aanu soo jiidan waa inaad halkan baad ka eegaysaa dadna uu soo jiidanaya dadna ma soo jiidanayo marka dadka uu soo jiito dadku soo jiitaa kaliig bay siinayaan oo markaaba waad arkaysaa marka dadkan siinna de way iska dhaafayaan dadka kalena laakiin inta qof ay aragtay totalkii un baad halkan ku arkaysaa haddaba in yar kadib baynu eegaynaa inta halkaasi say isku bedesho iyo inta qof ay aragta postigaagii wax yar baynu sugaynaa haddaba isla minute ka bacdiba dadka arkay postigeeni durba arkay waxa weeyaan waa 3 qof markiina 0 ama 1 baynu ahayd dadka engagement hadda aragtidna waa dadka ku soo like gareeya like-ta iyo commentiga iyo waxyaalaha way engagement-igu marka laba qof ayna engage gareeyay marka labada qof ama comment bay naga bixiyeen ma arkayna imka halkan kama arki karno ama comment bay markay naga bixiyeen ama like bayna siiyeen marka adu totally laba jeer baa lagu engage gareeyay 3 qofna waxaaga way arkeen durba xagee ka yimaadeen dadkaasi durba 3 qof ee traffic-gii durba waxay ka yimaadeen meeshan ku share gareyno marka horay u soconayaan marka maadaama imka minute tahay markay saac 24 saac oo kala taalo way ka sii badanayaan dadkii dad badan baa ku soo engage gareynaya ku like gareynaya video-gaaga daawanaya oo eegaya marka video-gaaga ku xiran tahay wuxuu ku saabsan yahay sida dadku ugu baahan yihiin u rabaan marka casharka ku xigay inoo ahaan doontaa insha Allah maalin wanaagsan